جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله الله. runtii waa su'aal aad iyo aad u cajaa'ib badan, aad iyo aad u qiimo badan. qof kasta oo muslima oo maqlana uu la yaabayo in nabiga la weydiiyey sallallahu alayhi wasallam dadka yaad ugu jeceshahay. jacaylku waa wax adduunka oo dhan uu raadinayo, gaal iyo muslimba maanta jacayl bay raadinayaan. 1437 sano ka hor, 40 iyo intaas sano ka hor ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ka jawaabay markii la weydiiyey yaad ugu jeceshahay. wuxuu yiri Caaisha yaan ugu jeclahay. maanta waxa laga yaabaa ragga Soomaalida qayb kamid ah hadii la yiraahdo xaaskaaga ma jeceshahay inuu indhaha hoos u fooriyo ayaa laga yaabaa. gabadhana ka basi daranba waxa laga yaabaa inay dhahdo awan ninkii reerka lahaa Sheekh Abdul Xambali oo mawduuca si fiican u yaqaanana waa jooga. يعني أول نينكي ريرك لها أوي magaciisa inay ka xishootaa laga yaabaa ayadoo jecel ayaa laga yaabaa inay ku dhici weydo inay jeceshahay. haddana jacaylku afka kaliya ma ahe, jacaylku waa ficilka wanaagsan weeye, jacaylku waa ixtiraamka weeye, jacaylku waxa weeyaan waa qalbiga shay ka soo go'a weeye, jacaylku waa wax bixinta weeye, waa sabarka weeye, waa dulqaadka weeye. maxaa nooga baahi badan maanta inaan isjeclaano? maxaa nooga baahi badan inaan jeclaano reerkeenna? waa gabadha dadka oo dhan ka dooratay weeye, dumar oo dhan inta dhex martay yaad ku tiri anti adiga ii qanciyey, quruxaan adaa ii qanciyey, diin ahaan adaa ii qanciyey, akhlaaq ahaan adiga ii qanciyey, sariir ahaan adiga ii qanciyey, cunto ahaan adiga ii qanciyey, caruurta qurqurux badan baad ii dhashay. anti waan ku jeclahay, dumar oo dhan waan ka jeclahay. waxaan leeyahay su'aasha nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waa su'aal wajihi ah, waa su'aal aad iyo aad u habboon, waa su'aalna anfacaysa jawaabteeda inuu nabigu bixiyey sallallahu alayhi wa alihi wasallam. لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر. maadaama mawduucayna ay tahay xalinta khilaafaadka, ma jirtaa waxyaabo qofku ugu hortegi karo khilaaf? alxamdulilah aad bay u fara badan yihiin. hal fadhi iyo laba fadhi midna laguma soo koobi karo. haddii aan tusaalooyin ka bixiyo tusaalaha wax lagu fahmaayo waaqica aanu ku noolahayna aan qayb ka siiyo. hayla marka wax la daaweynayo waa in daawadu ay tahay daawo ku munaasabsan cudurka bulshada haysta. cudurka bulshada ummadda Soomaaliyeed ee luqadooda aan ku hadlayna haysto waxa kamid ah wax loo yaqaano cadamul juluus, inaan lala fariisanin oo lamaanihi ayna wada fariisanin oo ayna isqancinin oo ayna wada hadlin oo ay shay kasta oo khilaaf oo ku yimaada ayna miiska dushiisa ayna ku wada. مثلا haddaan tusaale ka bixiyo hooyadina Caaisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ayadoo oo arintaas ka duulayso nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bal xadiidkan dhageyso waxay tiri kaana ar-rajulu min rijali nabigu wuxuu ahaa nin kamid ragiino kale shakhsi caadi ah huwa nabi laakiin haddana rajul caadi oo rijaashina kamid ah illa annahu kana akrama an-nas wa ahsana an-nas khuluqan kana dhahhakan bassama. وفيرس وحلقة أنتو سخلاف فدحين وحيابها أجوا وين اللي جوه تيجي كروه حوي الرئة هنا كم مكان أنا كم مكان طبعا أنك الله يعوين إن أنو النبي محمد كذا يا صلى الله عليه وسلم قابك ورير كيسي ولدك متشري سوى سخلاف وين فمثلا وحيل هذا هاي نبوها لمن كينو كلا كميدا لكن وحوها مت كذاتك أجو كرامة بدن أجو شرف بدن وحوها متك أو أخلاق بدن مركز إنتي فسرتي وحلتني كان ضحاكا بسامة وحوها متك والله عدين بدن أو قصل بدن يعني النبي قصل دقدقة معه ما لا يعني لكن في مركو ريركي النبي يقول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول أقص لي كده واحد جرس مركز وجه معبوس نمبر إيه وجه قال ضوبيه إيه نينك مركو برنامج شوقه قال لي يرى ضدك صاحبي لا قص ليه
محل لقى يابو هذا عبارة أكية ولقى يابا إنه خد غلط هاي إلا يقصحه يعني إنه الضمر أجانب الله قصري لكن حاسكي سبركو إمادة الموضوع إنه أبيه دي شيء أما هو يدي أي شيء صدر هذا حاس لهي وحيابه أقوم سنة اللوجو هرتي كرو خلافات وحكميدا نول عدينتا إيا قصلك إيا لفريسك حاسك إيا لمانوه إنتي ولا فريستان أي ميل أرض إسلامية وإلا أرض أدو فلا إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل في حنبلي محاك لو كميدا طيب نبي قابيل عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة marka dhoola cadayntu waa nooc ka mida inaad qofkani aad qalbiga u furto waxaa kale oo ka mida waxyaabaha looga hortagi karo khilaafaad horta waa laabudda sidaan xalaqadii hore ku soo sheegnay halkeedana waan tilmaami doonaa biidni illaahi laakiin wiqaayada iyo waxyaabaha looga hortagi karo waxaa ka mid ah idhaaru lxub in jacaylka la muujiyo jacaylka in la muujiyo meesha waa meeshaan dhihi jiray annaga qolyaha reer miyiga ah waa looga fiican yahay marka qofka inuu yidhaahdo u fiirso caaishuu nabiga la fadhiya calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu ka sheekaynayaa khadiija oo dhimatay hooyadeen khadiija allah u naxariistee wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam innii ruziqtu hubbaha allah waxaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkiyaa ugu jecesha markaasuu wuxuu yidhi caaisha radiyallahu anha وصلى الله عليه وسلم وواحد لو فانا انه قف يراده marka qofka in uu mashaacirta xubbiga la wadaago inuu la wadaago qofka oo gabadhu ay wajiga u furfurto zawjkeeda sheekh shibilan waxaan ka dhageystay dhibaatada gabdhaheena Soomaalida waa dad aad u wanaagsan oo aad gob u ah laakiin waxa weeye ninkii iyagoo indhahooda ka jecel ayay hadalkii markii u yimaadeen waxay dhihi adiga hadal adag ay ku dhihi marka in yani rag iyo dumarba ibtisaama dhoola cadaynta wada sheekaysiga aan wada hadallo aan heshiino hadii mar la wada hadlo dhibaatooyin badan oo iman lahaa baa laga hortagaya jacaylka iyo xubbigana in la wadaago la inuu suna sheego nabiga sallallahu alayhi wasallam kaana yuqabbilu zawjatihi ودوكان jiray isagoo waliba marka hadana dacwadiisii iyo masaajidkiisa u socda ayuu nabigu dhunkan jiray sallallahu alayhi wasallam marka wada ciyaarida iyo wada waliba meesha marka inuu noqdo waxani marka la sheekaysanayo meel degan oo shaaha iyo cid walba qof walba wuxuu jecel yahay timirta iyo lowska iyo reer magaalku kookada iyo waxaas ay jecel yihiin la keeno waxyaabahaas oo dhan in jawi حب كعمر الحب ماء الحياة حبك جعيلك وبيه نلشة حبك وقفك عيبتي سوكا عند تريا تران دلدلو الذي ساد كله بيسا واد ugu sabraysa waad ugu dulqaadanaysa marka waxyaabaha soo dhan waxay u baahan waxay ka hortagi karaan inuu mashaakilaad badan lamaanaha ku yimaado amaanta kamid نعم أليس كذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أمانته نعم وليبو كل العلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كما صير إلى عائشة هذا نول اسمه سو قال شيخ صح نول اسمه سو قال يعني مركي هو يدين خديجة أي لما تكذب أيو نبي قرصن دونا بعد سودة أيو عائشة قرصن دونا هذا نصائح هاي فضل اللي قال حتى مرة قاركوت ولا شيء هالة أبك هذا يحسبك الجري أبك خليج كسف من قنجري كسف الله وإلا هالة أنا وسوس أشعر هلو ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار